garanaya nin odayaho hadda waa dhinta law naxariistay neefta xanuunka la yiraahdo qabay sanawaad aad badan aad buu tabcaami jiray neefti baa la ka kaxeeyay waxaan ku yiri neefti ku dhibi jirtay ilaa markii aan qaan gaaray ilaa anu nin weyn neefti uu qabay muddadan baa ilaahay ka kaxeeyay subhanahu wa ta'ala neefti maxaa ilaahay kaaga kaxeeyay markaasuu gacanta soo qabtay kale ilaa ku sheegay adeero wuxuu yiri salaada maqrib markaan tukado ilaa salaada cisha inta u dhaxaysa cidna lama hadlo meel baan fariistaa kun jeer baa nabiga ku salliya alayhi salaatu wasalaam markaasa ilaahu neefta iga kaxeey baan idhaahdaa ilaahay neefta waa iga kaxeeyay ninkan sheekh ee taqaanaan ee Salih al-Maghamisi la yiraahdo faajka quba imaamka ka waacidka sheekha fasirka waadhood waa la qalay dhakhtar baa la dhigay dhakhtarka caloosha laga qalay dhakhtarkii baa la dhigay markii siriirtii la soo seexiyay qofka tuubooyin baa la geliyaa dhiigga iyo dhicaankii ka soo saara marka ugu horeysa la qalo tubooyinkii baa caloosha ka soo qaaday waa dhiig iyo dhicaan isaga ka sheekeynay aan ka dhageystano markaas dhakhtarkii baa loo sheegay dumarkii mumridaadka ama narsiska u sheegeen oo yiraahdeen tubooyinkii ma soo qaadayaan dhiig iyo wixii dhakhtarkii wuxuu yiri amaliyada dib loogu celinaya wuxuu yiri gabadh kamid ahayd gabdhihii waarka ka shaqeynaysa dhakhtarka ka shaqeynaysa baa soo agmartay waxay tiri salli ala rasuul sallallahu alayhi wasallam baad rasuulka salligiisa badi nabiga aad ugu sallallahu alayhi wasallam والله marka iga tagtay buu yiri oo dhakhtarkii lagu maqnaa daqiiqadu iga soo raagay dhowr 10 daqiiqo 20 meeyo markii uu soo noqday mise tubooyinkii saas u sii deynayaan dhicaankii dhiigii wixii baa wadaanba marka qofku ka sali badan yahay nabiga waa loo geenaya hebel rasuulka ilaahayow inta soo jeer buu kugu soo saliyay baa la dhahayaa salaatu alayhi wasallam alayhi soo ayaan darama aha 24 saac warkaaga la qaadinba oo nabiga ku sallallahu alayhi wasallam فإذا لقيه لي وحاكم إذا نبي قلت المام من صلى علي صلاة واحدة طبعا شرب الله كصلية وحط عنه 10 خطيئات طبعا دم من إلهي وكقضادية ورفعت له 10 درجات طبعا درجنا إلهي واسية سبحانه